marka intay kalma sameeyaan dadka uga sheekeeyaan waa shaydaan iyo shaydaanad guul shaarica iska helan waxa soo harayba waa ceeb weyn waa edab daro dadka aan akhlaaqda lahayn oo qofkaas gobanimo ma leh damiir wanaagsanna ma leh xaaladaha sariirta hadduu dadka uga sheekeeyo waxyaabaha keenana way reeruhu inay ku burburaan tandiimu nasligu inuu bannaan yahay baa la tilmaamaa ama tarankii la kala fogeyn karo haddaanay tacqiim ahayn oo dhasha aan la joojinayn wadooyinka xalaasha ah baa lagu kala fogeyn karaa oo iyaguna kolley waqtigooda u baahan la sharxo waxa waajiba labada qof maadaama mucaamaladan ay dhammaysteen salaada subax inay u maydhaan oo aanay ka tegin siduu nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam waqtiyada xaaraamta waxaa ka mid a ruuxa dumarka markay soom farala soomanta ama xaj xidhan tahay ama cimro xidhan tahay xaaladaha galmadu waa xaraam labadaa qof cawro ma kala la iyagu hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna xadiid daciifa weeye oon la cuskan karin aharka sheegaya caaisha ay leedahay anigiyo nebigu maanaan kala arag kaasi ma sugna laakiin waxa sugan inay weelkan wada maydhan jireen cawradaada cid walba ka qari ilaa xaaskaaga mooyaane baa xadiid saxiixa ah oo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam dhar baabay isu yihin waanay jinaasadoodana way ismaydhi karaan aadaabta waxaa ka mida labada qof si mucaamaladooda iyo kalgacalkooda u wanaagsanaado nadaafadda inay ilaaliyaan in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutatahiriin dharkooda iyo afkooda iyo jidhkooda waa laba qofoo carfaya udgoon wey ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray anigu xaaskayga waan isu qurxinayaa sida aan u jecelay inay iyaduba isugu kay hagaajiso ayaan jecelahay laakiin haddaad jaadkii iyo sigaarkii cunaysa iyo wax kaloo ka sii daran kolley xunbaa kaasoo kankami oo markaad dharka kartabaanka dharka sudho kolley halkaa sigaarkii uu ka soo kankamaya intaan adigaba jidhkaaga la gaadhin qofka muslimkii waa qof udgoon wey arrimahaasoo dhan iyo qaar kaloo ka sii badan aqaafada noocani waa aqoon bay u baahantay dadka weliba xaasilaydii si ay xurmada iyo karaamada qur-aanku nafaraya u ilaaliyaan inay aada u bartaan waajib weyn inahaasaynu ka tilmaami karnaa aadaabta wada dhaqanka noocan ee